الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال وحين برنامج كينا كجور رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. أي حلقة تنهر دعنا قنطون تاع محاسن الإسلام وناجد أولي هي إسلامكم. طبعا إسلامكم حين فرعين تاسو وناك كستو نفرانا ومتكتب شمية وناك إسلامكم wax kasto islaamku inoo diido ama uu naga reebaana waa wax ka turjumaya isla wanaagga islaamka. laakiin bal waxaynu samayn doonaa inta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inooga qadaro inaynu bal dul istaagno qaar ka mid ah wanaagyada ugu muuqashada badan ama si kale haddii aan u dhigno ugu waaweyn ee tilmaamaya islaamka qiimihiisa iyo macaankiisa. diinul islaam إلهي سبحانه وتعالى وحكدقي إنك كوبناتو عبادات معاملات يا أخلاقيات إن أعمال إلهي سبحانه وتعالى لقول وانا العبادات أو كذا حيث أدونك يربي الرمضتك يكون هذا الرقم يان أو قابك يقول لك هذا الرقم يان إسلام كوكورمي مركاي واحد لحمريان أما يكليب سنيان أما يسكور سنيان وهالمجر يوحي لمذا ميت كلا صدحنا إلهي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكجور رميو أخلاقياتك لقنك قفك قيسك يبرشد وأيالنا صب ينوى وحسام قوي نفهم لنا عكل هدين كي يستغنوا وأنا ماشي أقول لهم سنة دين الإسلام كوحي الناس ميسي أصول ثابتة ونسبة بدلي هو وين وهديكوا لوايو أنتي كراي كسر هذولن لواي sidaa darteed ba waxaan oran karnaa si kala hadii aan u dhigno islaamku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo usul ama aqaid iimaaniyat laga rabo qofka muslimkii inuu la yimaado. markaynu guda galno aynu arki doonaa noocyada u qaybsamayaan iyo siday noqonayaan. haddaba maxaasinul islaam ama wanaagyada islaamku leeyahay bal mid iyo laba iyo saddex tusaale oo kamid ah soo qaadan. tusaalaha koobaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankan uu kaga waramay waa diin islaamku waa diin ku salaysan usul iyo mabaani dhismayaal adag tiirar adag. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagoo arrinta noocaas ka waramay waxa uu leeyahay qulu aamanna billahi wama unzila alayna وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وسوشي وولد بالله سبحانه وتعالى هو الشيكي قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وحيابها لقرب وقفك مسلم كل لي ما دوكمنت الله سبحانه وتعالى خصوصي الله سبحانه وتعالى وصدري كتبتي كسو دجيه iyadoo aan kala tafriiqinayn la kala geeynayn. waxyaabaha islaamku leeyahay diinahan maanta la taxriifiyay oo dabcan in hoos u daadigi doona waxa kamid ah ambiyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo diray ma kala geeyno mana kala xigsano laakiin waxaynu u wada rumaynaa inay yihiin rasuul Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo diray. diimaha qaar maanta la taxriifiyay oo aan shaqaynayn waxay dadka ugu baaqaan ama ugu yeeraan in Allah subxaanahu wa ta'aala khaaliqa macbuudka ay jirto cid la agdhigo ama lagu weheliyo oo qaarkood ay yiraahdaan thalith thalath saddex ilaah baa jira. kristaanka baa kamid waa nabi Ciise alayhi salaam iyo hooyadii Maryam. halkaan islaamku marka wuxuu nagu baaqay usul waaweyn oo thaabit ah oo aan isbedbedel marka kutubta laga warramayo islaamku wuxuu ku baaqayaa in kitaabka quraanka uu yahay kitaabka kaliya shaqeynaya inta kalena loo ictibaarinayo oo loo eegayo inay yihiin kitaab Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dejiyay laakiin aan shaqeynin. injiil baynu rumaysanahay oo nabi Ciise Ilaahay soo dejiyay. tawraad baynu rumaysanahay oo nabi Muuse Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dejiyay.
zabuur baynu rumaysannahay oo nebi daawud ilaahay subxaanahu watacaala kusoo dejiyey suxufi ibraahim baynu rumaysannahay oo ilaahay subxaanahu watacaala nebi ibraahim kusoo dejiyey innagoo haddana intaasoo dhan rumaysan ba haddana waxaynu dhaqan gelinaynaa oo waxaasoo dhan mansuuq ka dhiga waan shaqaynayn kitaabka qur'aanka waa tusaalaha koowaad tusaalaha labaad waxaa ka mid a waa waxyaabaha islaamku inoo sharciyey marka laga yimaado shahaadatinka ama tawxiidka waxaa ka soo hadhay waa arkaanu islaamkii kale ula fiirso salaadii zakadii soomkii xajkii arrimihii kale o dhan islaamku inoo sharciyey haddaynu salaada oo keliya ka warramaysa idhaahno inta wanaag ay leedahay caafimaad ahaan akhlaaqiyaad ahaan fawaa'idda qofkuu ka faa'iidaya adduun iyo aakhiro labadaba ma ka goyin karaan inay tahay cibaado ilaahay subxaanahu watacaala nagu addoonsaday oo intaasoo faa'iido mid jir ahaaneed mid bulsho ahaaneed mid qoys ahaaneed mid qof ahaaneed intaba laga helayo iyadana ma ka goyin karaan zakadii balu fiirso sida islaamku uga taliyey in dadkii wax haystay laga soo qaado markii mucaad binu jabal rasuulku u diray yaman muxuu ku yidhi waxaad ku waajibisaa zako iyo sadaqo ilaahay subxaanahu watacaala oo ku faraariyaado oo laga qaadayo kuwooga hodanka ah lana siinayo kuwooga fuqarada ee baahan ee masaakiinta ah islaamku wuxuu ku dadaalayaa takaaful ijtimaac in bulshadu ay noqoto bulsho isku xiran oo isku duruufa isku dareena oo dhib iyo dheefba wadaagaysa taas maxay ku dhacaysaa waa in aanay kuwa fuqarada ama kuwa masaakiintii aanay damcin hantida iyo maalka ilaahay subxaanahu watacaala uu siiye kuwa tujaarta ah ama maalqabeenka si taasi meesha uga baxdo waa iyagii wax dib lagu soo celiyo si loo dareensiiyo kuwii tujaarta ahaa ee wax haystayna waxaa lagu faraleelay hantidooda iyo maalkooda wax ka mid ah inay bixiyaan qodobka saddexaad inagoo halka hadda kasii aanbaqadi doonaa soomkii xajkii waxaaliga jira qodobka saddexaad waa uu leeyahay ama ka mida wanaagada islaamka wax ka mid a sida islaamku inugu baaqay midnimada inay dadka muslimiintii mid ahaadaan iyo sida isla jeerkaas uu rasuulka iyo ilaahay rasuulkiisu ay nooga digeen in dadka muslimiintii ay kala tagaan iskhilaafaan kala jeestaan balu fiirso wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay markuu ina yidhi xadhigga ilaahay qabsada inkoo dhamaystiran oo ha kala tegtegina ayaa wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka warramay waktigaa dadkii ku noolaa magaalada maka iyo hareerihii ama dadkii gaalada waktigaa noolaa ciqaabkii cadaabkii ay ku sugnaayeen iyo nimcadii ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey nicmatu itilaaf inay dadka isku yimaadaan mid noqdaan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a diinulislaam ay dheer tahay diimaha kale oo dhan waxay ka talisaa mar walba waxyaabaha dadka muslimiinta ay mid ku ahaanayn haddaad dib u fiirso iminka salaadaynu kasoo warramanay oo kale hal imaam baa tujinaya intaasoo qofna ku daba tukanaya waxaa laga yaabaa haddii masaajidka 100,000 oo qof ay ku tukanayaan hal qof baa wuxuu sameeyo ay inta kaloo samaynaysa haddii 3 qof ay yihiin ama hadday 2 qof yihiin qofkaasi wuxuu sameeyo buu samaynaya looma kala eegayo tirada looma kala eegayo midabka looma kala eegayo qabiilka looma kala eegayo qaaradda keliya waa inay yihiin dad muslimiina qofkaa tujinaya uu yahay qof ka soo baxay mas-uuliyaddaasi imaamnimada qodobka afraad diinulislaam waa diin naxariiseed haddaad u fiirsato cibaadooyinka ilaahay subxaanahu watacaala inagu waajibiyey qaarkood baa laynaga takfiifiyaa markaynu safarka nahay qaarkood baa laynaga takfiifiyaa wixii ay ku ansaxsay haddii aynu weyno inaynu raadsanno wax kale oo meesheedii noo buuxiya haddii aynu awoodi weyno oo xanuun oo kale u soobo sidaasoo waa diin naxariiseed waxaynu ku dhiirigelinaysaa in dadka muslimiinta inay noqdaan dadka wax tara xabiibkeeni maxamed sala allahu alay wasalam taan saxay ayaa wuxuu rasuulku tilmaamay u yiri dadka waxa ugu khayr badan kooga ugu anfac badan leh inaad dadka wax tarto waxay ka tarjumaysaa islaamnimada aad xambaarsantahay qodobka shanaad ولو في رسول الله سبحانه وتعالى وحوينا بحر وحوينا نودي ونجا ريبي نحريس دي الله سبحانه وتعالى وحكم له التلمام يسر شير كان محاسن الإسلام وناجي الإسلام كليه وحلي نودي وواحد السنة والله لك الكون والله صدق بيت كستوكم من وحيابها اللي نودي دينا إلهي وحي نوب الني أو نو سميي وحي نوب الدليل والسوق وكون والله ما هو صدق ما هو أفر ما هو tusaale ahaan dhaqanka foosha xun iyo dembiga iyo jariimada weyn ee zinada loo yaqaano waa hab iyo dariiqo qofku ku gudanayo baahidiisa jinsiga ahayd oo xaaraana
si haddaba qofku baahidiisii jinsigaydii uu guto faa'iidooyin badanna ay uga ratimaan waxaa laynoo jidayay guur waa mid ka mid a wanaagida islaamku uu leeyahy bal shay kaloo xaaraana soo qabo oo ilaahay subxaanahu watacala inoo diiday waxaanu arkaynaa didkiisa ama kasoo horjeedkiisa oo islaamku inoo baday qodobkaynu kusoo gebagabaynaynaa wuxuu yahay haddii aynu baranno maxaasinul islaam maxaynu ka faa'iidanaa kow waxyaabahaynu ka faa'iidana haddii aynu baranno maxaasinul islaam waxaa ka mid a mar kastoo qofku uu barto maxaasinul islaam wuxuu garanayaa qiimaha shaygaasu leeyahy mar kastoy farabadato wanaagyada islaamka ilaahay subxaanahu watacala ku siiyey mar kastood barato waxay ogaanaysaa qiimaha uu leeyahy markaad qiimaha ogaatana waxaad ilaahay subxaanahu watacala ugu mahadnaqaysaa nimcada ilaahay subxaanahu watacala ku siiyey laba mar kastoo isla sheerka aad ogaato waxaad ku dadaalaysaa sidaa usoo xaasil garaynaya haddii ninka tusaalahaan lagaaga sheekeeyo 100 ama 1000 ama 2000 ama milyan ama intaasoo wanaag oo islaamku leeyahy oo lagu taxo oo lagu dhahdo salaaddii intaasoo faa'iidaa ku jirta zakadii intaasoo faa'iidaa ku jirta guurkii intaasoo faa'iidaa ku jirta iibkii intaasoo faa'iidaa ku jirta mucaamaladaa kale intaasoo faa'iidaa ku jirta sadaqadii intaasoo faa'iida waxay taasi keenaysaa inaad ku dadaasho inaad shaygii barato qodobka saddexaad ugu muhiimsan wuxuu yahay oo weliba si gaara u sii khuseeya dadka ducaadda ah ee dadka ilaahay subxaanahu watacala xaggiisa ugu baaqaya inaanay marnaba kadib dhicin oo ay waajib ku tahay inay dareensanaadaan inay ka mid tahay asbaabta ay dadka dacwadda ugu baaqiyaan ama wasaa'isha ay adeegsanayaan inay dadka ugu yeedhaan oo uga warramaan oo uga sheekeeyaan wanaagyada islaamku leeyahy dad aad iyo aad u fara badan oo maanta ka qatan islaamku wuxuu yahay ayaa buuxa dadkaasi marka haddaynu uga warranno waxaynu helaynaa in dad fara badani ay ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa kusoo islaamayaan inagana ilaahay subxaanahu watacaala sabab inooga dhigayo xalqadayna markaa hordhacda noqon doonto insha allah xalqado kale soo wado ilahaasaynu kusoo gabagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam waxkam wabilahi tawfiiq